khilaaf xooggan ayaa ka dhex taagan beelaha Maxamuud Garaad qaabka loo soo xulayo xildhibaanada ku matali doona beelahaasi dowladda federaalka Soomaaliya sanadkani oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Sool. Qoondada haweenka oo ah 30% nidaamka soo xulista baarlamaanka dalka ayaa beelaha Maxamuud Garaad loo asteeyay muddo hore in sanad waliba ay qaataan hal murashax oo haween ah oo qayb ka noqonaysa 4 xildhibaan oo ay leeyihiin beelaha Maxamuud Garaad. beelaha Maxamuud Garaad ayaa sidan u kala qaatay xildhibaanada beesha Maxamed Siyaad 2 xildhibaan, beesha Jaamac Siyaad 1 xildhibaan iyo beesha Cumar Wacay soo qaadanaysa iyana 1 xildhibaan. beesha Jaamac Siyaad ayaa 4 sano ee la soo dhaafay xildhibaankoodii ka dhigay gabadh hab qaabilsan nidaamka awood qaybsiga xildhibaanada ee beelaha Maxamuud Garaad. sanadkan oo qorsho ah in beesha Maxamed Siyaad labadooda xildhibaan mid ahaan ay ku cumaamadaan qoondada haweenka ee halka xildhibaan ee gabadha ah ayaa ay guud ahaan beeshaasi diiday waxayna ganabka ku dhufteen nidaamka awood qaybsiga beelahaasi. Garowe waxaa ka socda shirar hoosaadyo looga hadlayo xildhibaanada Soomaaliya oo ay wadaan beesha Maxamed Siyaad mas'uuliyiintooda Puntland iyadoo uu hadda ku soo biiray wasiirka kalluumaysiga Soomaaliya Cabdilaahi Bidhaan Warsame. arrintan ayaa looga golleeyahay in mar kale kursiga xildhibaanimo ee beesha Jaamac Siyaad dusha looga tuuro murashax xildhibaan gabadh ah. kulamo kale ayaa ka dhacay gudaha magaalada Laascaanood oo ay qabsadeen beesha Jaamac Siyaad iyadoo isku raacay inaysan aqbali doonin gabadh dambe oo kursigooda la siiyo. khilaafkan ayaa ah mid hareeyay beelaha Maxamuud Garaad si gaar ah beelaha Ilmo Siyaad waa Jaamac iyo Maxamed muddooyinkii u dambeeyay oo Garowe xalintooda ay ka socoto balse ilaa hadda uusan jirin xal la isla qaadan karo oo wada anfaca beelaha khilaafku ka dhaxeeya Siyaad Maxamuud.